War degdeg ah ku soo dhawaada ayaa Yurad News channel-ka YouTube-ka dagaal xooggan oo ka socda Bariire iyo khasaare ka dhashay. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal saaka aroortii hore ka qarxay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalka oo ah mid xooggan ayaa waxa uu u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo ay ogaatay shabakad ka soo baxday caasimadda Muqdisho oo la dhaho caasimadda online. Dagaalka ayaa yimid ka gadaal markii dagaalyahanno hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen deegaankaas. Ilaa deegaanka ayaa xaqiijiyay in dagaalyahanadu ay beegsadeen fariisimo ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin halkaasi. Dagaal toos ah ayaa xigay weerarkan kadib markii iska caabin ay sameeyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee howlgallada deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo dagaalka haatan socda. Inkastoo aan la caddayn inta uu leeyahay, sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, isla markaana ay ku gubteen guryo ay degganaayeen dad rayid ah. Xaaladda ayaa haatan kacsan, mana jiro wax war ah oo ka soo baxay labada dhinac ee diriraya. Bariire oo qiyaastii 65 kiiloomitir koonfur galbeed ka xiga magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhowaan la wareegay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, hase yeeshee kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro gaadmo ah ku soo qaaday gudaha deegaankaasi. Wixii warar